السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بالدعوة شيء قيمها يقدرينتم مدن ميل والبودافع عالم كاكتشوكتان الدعوة يالي سرق مقل وناكسن وعن وحال سوق جار وقت نضهن وكلا ودين سومرين جرني وروحي ديجان كي يدل كنجس وجاره وستو سيدين كي من يستون حرونت الديجان كسملة يتوبيا مجلة الجيجا وركي جنا واحد لسه دوراني وفار عبد الدبيط قضبة وركان ديجان كي يدل كيدين كهينو وجود دور كورونا وحى كمدا حكومة دولة ديجان كسملة يتوبيا حزب الديمقراطي شعبي كسملة يتوبيا قولها كابنية يجودها بشعبوينها الديجان ك وور يا مدحوينها دولة ديجان كسملة يتوبيا مدن عبد محمود عمر يا وحى يساعدوا عن باريين غرحي كدعي مجلة السببية حرونتا دلكا رئيس الوزراء الجمهورية الديمقراطية فدرال كيتوبيا دكتور أبي أحمد يا شيخي إن مالين تناي شعب كرر يتوبيا وهايد مالين نحذن له دين عكلنا يوتاي كوجوليس من مدى يسشعيل كاب وضبطن يغضبك لها يدن كود داون دونتان حل تبنتنا نورد markale daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo sarag maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo faahfaahsan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaaliya Itoobiya golaha kaabineyga deegaanka iyo guud ahaan shacabweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ugu horeeyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudan Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa ay si adag u cambaarayeen qaraxii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka taniya intii loo doortay jagada ra'iisul wasaarenimada mudane Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya waxa jiray isfahanno ballaaran iyo tallaabooyin uu ku guuleystay muddo gaaban gudahood hadaba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudan Cabdi Maxamuud Cumar oo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo ka shacabweynaha deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa waxa uu bogaadinaya guulahaas iyo natiijooyinkaasi wax ku oolka ee uu ra'iisul wasaaruhu muddada gaaban gudaheed ku gaadhay hadaba waxa xusid mudan in maanta oo ah maalin sabti ah taariikhduna tahay 16 bisha Zani 2010 tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya ama 23 June 2018 tirsiga reer galbeedka inay malaayiin dad ah oo ku nool magaalada Addis Ababa iyo nawaaxigeedu ay isugu soo baxeen banaanbax ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan ra'iisul wasaaraha ayaa iyadoo munaasabadan isu wanaagsan u qabsoontay taagantahayna gabagabadii oo ra'iisul wasaaruhuna khudbadiisii gabagabeeyay ayaa waxa dhacay fal argagixisanimo ah oo qarax bam ah oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah hadaba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudan Cabdi Maxamuud Cumar oo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo kan shacabweynaha deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa waxa uu si kulul cambaareeyay falkaasi sida fulaynimada ah loo fuliyay ee ay ka dambeeyeen shakhsiyaadka argagixisada ah isagoo halkan taasi tiiraan yeelay uu madaxweynuhu uga dirayo dhammaan eheladii iyo qaraabadii dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi iyo shacabweynaha dalkeena Itoobiya isla ahaantaana cadeeyeen xukuumadda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ka geysan doonto taageerada kaga aadan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in maalintani ay shacabka reer Itoobiya u ahayd maalin naxdin leh dhinaca kalena ay tahay ku guuleysiga midnimada isjacaylka ይህ ቀን ኢትዮጵያውያን ተደምረው በፍቅር በይቅርታ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ፍቅር እንዲዘንብ ያደረጉበት ዕለት ቢሆንም ይህን የማይፈልጉ ኃይላት በተጠና በታቀደ መልኩ ሞያን ታግዘው ይህን ደማቅ ስነ ስርዓት ለማለፍረስ ለማበላሸት የሰው ህይወት ለመቅጠፍ ደም ለማፍሰስ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል አጠቃላይ ዓላማቸው የጨነገፈ ያልተሳካ የከሰረ የወደቀ ቢሆንም ጥቂት ኢትዮጵያውያን እንዲጎዱ ሆኗል ህይወታቸው ያለፈ ጥቂት ሰዎችና የቆሰሉ ሰዎች አሉ በመጀመሪያ ለዚህ ክብር ዓላማ ለኢትዮጵያ ፍቅርና ይቅርታ ሲሉ ህይወታቸውን ላጡ ወንድምና እህቶቼ ለቆሰሉ ወገኖቼ
ቤተሰብ ሁሉ መጽናናትን እየተመኘው maalintani inkastoo ay ahayd maalinta isku duubnaanta midowga isjacaylka iyo is-cafiska shacabka reer Itoobiya waxaa jira xoogag aan doonayn oo wata hanaan xeeladaysan ayaa waxay dadaal adag u galeen inay maalinta farxadeed u bedelaan mid mugdiya oo ay dhiig ku daadiyaan inkastoo ay ulajeedadooda guud noqotay mid dhicisooday oo guuldarro ah haddana waxaa ku waxyeeloobay dad tiro yarina way ku dhinteen kuwa kalena way ku dhaawacmeen marka hore dadkaasi sida farxadda leh uga soo qayb galay maalintan isjacaylka iyo is-cafiska ee shacabka Itoobiya ee ku waxyeeloobay naftoodana ku waayay kuna dhaawacmay ee walaalahayga ragga iyo dumarba leh waxaan waalidadood u rajaynayaa niyadsan maalintan nafurista lafteeda ee isjacaylka iyo midnimada waxaa loo soo maray halgan iyo nafuris maalintanna weligayo ma iloobi doono laakiin maalintan lafteedu waa mid nafuris ku timid oo dadaal iyo halgan aan u soo galay waxaanan walaalahayga Itoobiya u sheegayaa in midnimadu guulaysatay guulna tahay dilka aan ka guulaysanno dilka aan fashilino oo aan takoorno farxadda midnimada iyo muwaadinimada shacabku qorshaysto ee uu ku shaqeeyo waa mid sahlan laakiin shacabka Itoobiya ma aha shacab sahlan waa dad gaamuray dad yarina na nusqaamin maayaan oo sharafteena hoos u dhigi maayaan ee iyagan hoos u dhigaynaa xoogga rabay maalintan farxadda leh inay mugdi u rogaan isjacaylkeenna ay madoobeeyaan midnimadeennana ay burburiyaan way guuldaraysteen Itoobiya waxay sii wadaysaa midnimada is-cafiska iyo tubta saxda ee hayso ኢትዮጵያ አሁንም ለፍቅር ለይቅርታ ለአንድነት የዘረጋችው እጇ አይታጠፍም በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የሚዘንበው ሰላምና ፍቅር አይቀየርም ይህ እንዲሆን የምትተጉ ሰዎች ትናንት አልተሳካላችሁም ዛሬ አልተሳካላችሁም ነገም አይሳካላችሁም dadka aan doonayn midnimada iyo isjacaylka shalay way guuldaraysteen maantana way guuldaraysteen berrina way guuldaraysan doonaan waxaanan shacabka reer Itoobiya u sheegayaa inay sii adkeeyaan midnimada isjacaylka iyo is-cafiska meelna ay uga soo wada jeersadaan xoogagga ka soo horjeeda midnimada is-cafiska wadadan horumarkuna ma noqonayso mid ay haba yaraatee wax yeeleeyaan waanan sii wadaynaa midnimada iskaashiga iyo is-cafiska shacabweynaha reer Itoobiya ኢትዮጵያ ከጀመረችው የፍቅርና የይቅርታ መንገድ ሊገታት የሚችል ኃይል የለም የተሸነፈ የወደቀ ሐሳብ ነው በተሸነፈና በወደቀ ሐሳብ እንደማንቆም ዳግም ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ رئيس الوزراء الجمهورية الديمقراطية فدرالك إثيوبيا دكتور أبي أحمد رئيس الوزراء كحجين كجمهورية الديمقراطية فدرالك إثيوبيا مدن دمق مكونن يمدحصر دلك أي بوقدي عسبيتالada ay jiifaan dadkii ku waxyeello biqarxi ka dhacay magaalada Addis Ababa fafaynta warkaas waxa inoo eegaya Wariye Cabdi Cumar رئيس الوزراء دلكن إثيوبيا دكتور أبي أحمد ويكون هلنيا رئيس الوزراء كحجينك مدن دمق مكونن iyo mas'uuliyiin sarsare oo heer federaala iyo maamulka magaalada Addis Ababa ayaa booqday hospitaalada ay jiifaan dadkii ku waxyeeloobay qarxi ka dhacay xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa ee soo bixi lagu taageerayay waxqabadka ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya waxaana ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiintii la socotay ay booqdeen sariiraha ay jiifeen dadkii uu qarx waxyeeleeyay iyagoo la sheekaysanayay isla markaana ay xog wareysanayeen sidoo kalena maamulka hospitaalada iyo sidoo kale dad faraxsanna ay ku soo xoomeen isla markaana ay u muujinayeen taageero iyo farxad ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya waxaana hospitaaladii uu booqday ra'iisul wasaaruhu kamid ahaa hospitaalka weyn ee Duquranbasa ee magaalada Addis Ababa iyadoo halkaasina dadkii dhaawac ahaa ee ku waxyeeloobay qaraxa uu ra'iisul wasaaruhu booqday qofna u dul istaagay isla markaana xaaladooda wareysanayay isagoo dadkii dhaawac ahaa iyo waalidiintood u rajeeyay caafimaad iyo in xaaladaasi ay dhacdo uu ka xun yahay sidoo kalena uu muujiyay taageero iyo mar walba inuu barbar taagan yahay xirfadlayaashii caafimaadka iyo maamulka hospitaaladii uu booqanayay wafdigan uu horraacay ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya uu ku booqanayay dadkii ku waxyeeloobay qaraxa ayaa iyaguna u muujiyay inay taageero iyo taakulayn siinayaan bukaanka sidoo kalena ay barbar taagan yihiin ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya waxaana maamulka hospitaalka Duquranbasa Dr. Daawud uu sheegay in hospitaalka dadkii dhaawac ah ee la keenay qaar badan uu soo gaaray dhaawac fudud qaarkoodna uu soo gaaray dhaawac culus qaar badan ay ku laabteen guryahoodii
dad koobanna hadda ay ku sugan yihiin cusbitaalka ayna la socdaan xaaladooda aadna ay u fiican yihiin guud ahaan booqashadan uu ra'iisul wasaaruhu ku booqanayay dadkii ku waxyeeloobay qaraxa ee jifa cusbitaalada magaalada Addis Ababa ayaa ahayd mid xambaarsanay dareen iyo jawi gaar ah oo ra'iisul wasaaruhu uu ku muujinayay inuu barbar taagan yahay dadkii taageerada u muujinayay ee farxadda darteed farxadda ka soo qayb galay isla markaana ay waxyeeladu soo gaadhay qaar ka mid ah xogeynta sare ururka dhalinyarada kacaanka gaamuray ee heego ayaa codsaday banaanbax lagu taageerayo waxqabadkii ra'iisul wasaaraha dalka aynu eegno faafaynta warkaasi qaar ka mid ah xogeynta sare ee ururka dhalinyarada kacaanka gaamuray ee heego ayaa codsaday banaanbax ballaadhan oo lagu taageerayo isbedeladii iyo waxqabadyadii muddada yar ee kooban uu ku hirgeliyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aniga ku hadlayo magacayga iyo magaca dhalinyarada kacaanka gaamurtay ee heego waxaan halkan fariin ooga dirayaa dhammaan dhalinyarada kacaanka gaamurtay ee heego ee ku nool deegaanka Soomaalida Itoobiya fariintaas oo ah hadduu Ilaahay yiraahdo barito oo axad ah waxaan qaban doonaa banaanbax aad u weyn banaanbaxaas oo ku taageerayno ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali si aan saa u sameeyno oo hadaan ka dhalinyaro kacaan heega ahaan aanu qabsano banaanbax noocaasna waxaan ka codsanay dawladda hoose ee maamulka magaalada Jigjiga in ay noo ogolaadaan noona fasaxaan mataqaanay meelihii hawlaha noocaas lagu qaban lahaa kadib way noo ogolaadeen waana qaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo barito banaanbaxaas aadka u ballan in ku taageerino mataqaanay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed sababta aan u taageerinayna waxay tahay sidoo ogsootihiin ra'iisul wasaaraha dalka isaga oo magacaaban muddo yar waayuu wuxuu go'aan u qaatay inuu imaado caasimadda deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga sida daradeed wuxuu xushmad nooga mudnaaday in aan taageerno la garab istaagno heel iyo hoo oo na jecel lahay ra'iisul wasaaraha dalka sababtoo ah wuxuu noo cadeeyay inuu na jecel yahay na xushmadaynayo na qadarinayo sida daradeed annagana haddaan nahay dhalinyarta kacaanka heego ee deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwa ku nool dalka kuwa dibadda iyo mataqaanay qaaradaha kala duwan ee adduunka ku noolba waxaan u sheegaynaa una cadeynaynaa haddaan nahay dhalinyarta kacaanka gaamuray ee heego inaan taageersanahay Dr. Abiy Ahmed lana garab taagan heeliyaho sababtoo ah wuuna xusay wuuna mataqaanay xushmadeeyay annagana mataqaanay waxaan weeyaan big xushmad baan u haynaa waan xushmadaynaynaa waana taageersanahay boqolkiiba boqol ilaa heerna furisna dhalinyarta deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay diyaar u yihiin inay garab taagnaadaan ra'iisul wasaaraha dalka sidii mataqaanay uu asagu noo garteen aan u garanno. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aniga ah Cabdiwaas Axmed Maxamuud Asnaaji ahna dhalinyarada ka tirsan heego ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta xagan waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo caalamkaba cidii ku noolba waxaan leeyahay maanta waxaan xagan aan ka baaq ku soo jeedinaynaa in aan ku taageerayno xukuumadda federaalka Itoobiya ee uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed taasoo ah aan ku taageerayno qodobadii aan hadda ka hor aan la kulanay marka aan Adsaabac sharafku noo sameeyay waxa ka mid ahaa in muxuu ahaa uu tusaale loo qaato dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dhanka biyo-xireenada oo kale iyo ceelasho kale uuna xooga u saaray because waxa laga yaabay dardargelinka ay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay wado marka taasna waxay ku tusaysaa jacaylka iyo ixtiraamka uu hayo deegaankeena Dr. Abiy taana waa maxay abaalkiisa waa inaan u gudnaa aan ku taageernaa ku muujina gacan iyo muruq iyo adinba inaan ku muujino because ra'iisul qura ee ugu horeeyay ee dawladeena u qiray in ay dhanka waraabka muxuu ahaa biyo-xireenada ama gidibyada saa loo yaqaano iyo ceelasha dhaadheer iyo ceelasha dhexdhexaba in tusaale laga qaato dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay kilada kale ka qaataan iyo qodobada kale oo ah Dr. Abiy oo soo jeediyay odayaasha baaq soo jeediyay in ay horumarka iyo isjacaylka iyo isdhaxgalka iyo wada noolaanshaha ay uu ka hadlaysana taasna waa maxay waxa ku tusaysaa in ay Dr. Abiy uu aad iyo aad u xiiseynayo deegaankeena gaar ahaaneed
kilil amnisti uu aad u xiiseynayo marka waxaan leenahay waxaan taageersanahay aan garab taaganahay dawladda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ee uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed waxaan leenahay guul iyo guul haddana waxaan leenahay beritoole insha Allah hadwa leedmo waxaan ku muujinaynaa annagoo ah dhalinyarada Heego ee kacaanka Gaamure Heego afkeeda ku hadlayna waxaan leenahay had iyo habeenba waan garab taaganahay dawladdeena iyo dawladda federaalka saan wada ogsoonahay bari waxa ka dhacaya caasimada dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya maamulka magaalada Jiga barnaamij ballaaran oo lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dalka mudane Dr. Abiy Ahmed kaasoo aanu ku taageerayno waxaan ku raadayay waxyaabihii aan ka aragnay waxaana koow ka saan ogsoonahay hadda Addis Ababa aadnay waxa weeye maxaan ku raadayay casharaf bana lagu sameeyay aad iyo aad u fiican waxa weeyaan qodobada aan ku taageerayno ee aan ku muujinayno codkayga waxa koow ka ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku celceliyay waxa weeye maxaan ku raadayay qabiilku inuuna faa'iido lahayn waxa weeyaan oo in lagu wada noolaado midnimo iyo isjacayl ta kale saan ogsoonahay ra'iisul wasaaraha dalku waxa weeyaan deegaankeena wuxuu yimiday isagoo 5 cisho magacaaban waxa weeyaan sababtaasna waxay ahayd jacaylka uu deegaankeena jecel yahay sababta waxa weeyaan waa deegaankii ugu horeeyay ee uu yimaado isagoo oo waxa weeyaan sharci magacaaban taasna waxa weeyaan waa jacaylku inuu jecel yahay ta kale ra'iisul wasaaruhu baaqi odayaasha deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo u diray odayaasha suldaamada iyo garaadada waxay ahayd waxa weeye maxaan ku idhaahday in la sii laban laabo horumarka iyo nabadgelyada deegaanka Soomaaliya Itoobiya ka hana qaaday la siina laba jibaaro saan ogsoonahay ra'iisul wasaaraha dalku wuxuu ku muujiyay waxa weeye in uu deegaankeenu yahay deegaanada horumarka xawligii uu ka hana qaaday mudanna in lagu daydo marka annagoo ah dhalinyarta kacanka Gaamure Heego waxaan cod ku muujinaynaa oo aan taageeraynaa ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed waayo waxa weeyaan waa ra'iisul wasaarihii waxa weeyaan maxaan ku raadayay deegaankayga kor soo qaaday waa ra'iisul wasaarihii markii koowaad noo yimid waa ra'iisul wasaare aanu jecelahay waa ra'iisul wasaare waxa weeyaan maxaan ku raadayay ka shaqeeya midnimada iyo wada noolaanshaha qowmiyadaha anigoo ka hadlaya magacayga iyo magaca dhalinyarta Gaamurtay ee Heego waxaan xaggan baaq ugu soo jeedinayaa insha Allah maalinta bariye in ay jiri doonto barnaamij lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dalka mudane Dr. Abiy Ahmed marka inagu hadii aynu nahay dhalinta deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaanu garab taaganahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Dr. Abiy Ahmed iyadoo ay mudan tahay in la xuso sababaha aynu ma taqaanayno ku taageerayno weligeed mayna dhicin abid in 250 qof ma taqaanay guriga ra'iisul wasaaraha ama baytimingistiga de loogu sameeyo afur sharafeed oo tirada dadka intaas leeg inta ay galaan ay ka soo afraan weligeed mayna dhicin in afur loogu sameeyo iska daayay 10 qof oo wada socota ama 5 qof oo wada socota weligeed baytimingistiga mayna gelin waxa ma taqaanaa sidoo kale iyadoo mudan in la xuso in ma taqaanaa baytimingistigi lagu dhax adimay lagu dhax tukaday salaadii maghrib iyo salaadii cishaa lagu tukaday waa arin iyaduna ma taqaanaa aan weligeed taariikhda dalka Itoobiya ilaa waqtiga Hayle Salaase ilaa Mingis Hayle Baaram ilaa IPRDF intay soo qabatay xilka weligeed arin noocaas sameeyna dhicindee tiro dad oo Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inta afur sharafeed loogu sameeyo ay ku adimaan ay salaadii maghrib ku tukadaan salaadii cishaa ku tukadaan weligeed mayna dhicin waxa dhici jirtay in Soomaaliya inuu baytimingistiga uu shaqo u tago laakiin inuu salaad ku tukado weligeed mayna dhicin inaan macnaha labada qodob aan xusana waan rabaa sidoo kale waxa weeyaan hadii aan nahay dhalinta kacaanka Gaamure Heego mar kastaba iyo meel kastaba waxaan garab taaganahay ra'iisul wasaaraha cusub waan garab taaganahay nabadda iyo horumarka uma taqaanay uu abaabulayo sarka loo aasayo sidii looga shaqeyn lahaana waan garab taaganahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyarada kacaanka Gaamure Heego worldwide ama caalamka meel kasta Heego ka joogan aan ugu baaqayaa inaynu haduu ilaahay Britol aynu ka soo qayb galno barnaamijka lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed waxaan leeyahay hadalkayga ku soo koobaya we stand with Dr. Abiy waxaanu garab taaganahay Dr. Abiy Heego hawarto dhanka kalena xogeynta sare ururka dhalinyarada kacaanka Gaamure Heego
si kulul u cambaarayeen qaraxii naxdinta lahaa ee argagixisada ee maanta ka dhacay xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa iyagoo sidoo kalena u tacsiyeeyay qaraabadii iyo ehelkii dadkii ku waxyeeloobay qaraxii maanta iyo guud ahaanba shacabweynaha dalkeena Itoobiya. Mas'uuliyiin isugu jirtay heer deegaan iyo heer gobol ayaa kormeer hawleed ku soo maray goobaha laga hirgeliyo qorshaha baabaco ee sanad miisaaniyeedka 2010 tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya laga fuliyay degmooyinka Qabri Bayax iyo Mula ee gobolka Faafan. Maxamed Cabdi Garbo ayaa baabaynta warkaasi noo eegaya. mas-uuliyiin isugu jirtay heer deegaan iyo heer gobol oo maalmihii u dambeysay kormeer indhaindhayn shaqo ku soo gaala bixinayay hirgelinta qorshihii bacbaco oo qaar ka mid ah degmooyinka ismaamul magaalooyinka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya laga hirgelinayay ayaa kormeerkoodii shaqo ku gaadhay degmooyinka Qabri Bayax iyo Mula oo ka tirsan degmooyinka gobolka Faafan. mas-uuliyiintan oo horkacayay wasiirka xafiiska horumarinta dooxooyinka iyo waraabka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Suldaan Maxamed Xasan ayaa waxa ay booqdeen hirgelinta qorshahan bacbaco habka iyo qaabka loo hirgeliyay degmooyinka Qabri Bayax iyo Mula iyadoo mas'uuliyiintu ay booqdeen qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay mashaariicahan horumarineed ee sanad miisaaniyeedkan 2010 fuliyeen degmooyinkaasi. mas'uuliyiintan ayaa waxa ay kormeerkooda shaqo ku bilaabeen degmada Mula qaabka ay u fulisay qorshihii bacbaco ee sanad miisaaniyeedkan 2010 iyadoo mas'uuliyiintu ay soo booqdeen qaybaha kala duwan ee qorshahaasi sanadkan iyo qaabka ay u fuliyeen degmadaasi. wasiirka xafiiska horumarinta dooxooyinka iyo waraabka dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Suldaan Maxamed Xasan ayaa warbaahinta deegaanka ku siiyay warbixin goobta degmada Mula ka fulisay dhulbeereedkii dhanka calafka xoolaha iyo wax soo saarka dhanka cunnada. waxaan soo gaarnay oon maanta kormeer ku ahayn barnaamijkii baabacada ee degmada Mula iyo qaabka looga hirgeliyay iyo waxyaabaha ka jira inaan si dhab ah aan u ogaano isla markaana wixii taageero aan siin karana aan siino wixii la qabtayna aan halkaas runtii aan ku soo aragnay yarnay waayo sanadkii waa gabagabo shaqooyinkii dhinaca baabacada ee degmooyinka ka socday wixii dhammaaday waxaan dhammaanin inaan si guud u jeegarayna ayaan kolley maanta meesha u nimid kormeerkaas oo gobolka Faafan inta badan degmooyinkan ilaa shalay iyo darrad aan wada maraynay marka maanta degmada Mula ayaa nimid waxaa la dejiyay 60 qoys oo ayaa meesha mataqaanay loogu talagalay barnaamijka baabacada guriyihii way dhisan yihiin beertii mataqaanay loogu talagalay dadka halkan la dejinayna waa tan hadda aan dhex taaganay qoys walba wuxuu leeyahay 2 hektar calafka xoolaha iyo waxaas lagu beerayo oo xoolaha ay ka faa'iideysanayaan iyo 1 hektar oo ay beeranayaan qoysku oo raashin ay kala soo baxayaan iyo qudaar iyo waxyaabihii mataqaanay daily income-ka ay kala soo baxayaan ayaa qoys walba mataqaanay halkan loogu beeray. marka barnaamijka runtii waa barnaamij wax looga bedelayo dadka tabarta yar ee hayntooda yar tahay sabalka wixii inta ka dambeeyna uu isaga noloshiisa ku filaado uu ka sii faa'iideysto. mar haddii beertii loo sameeyay biyihiina loo soo xidhiidhiyay beerta waxa loogu talagalay abaar kasta noocay doonto ha noqotee hadday timaado inay dadkaasi wax saameyn ku yeelan. xasan cali cabdi waa gudoomiyaha maamulka degmada Mula waxaanu waraysi kala yeelanay qorshihii bacbaco ee degmadaasi habka iyo qaabka ay u fulinayaan iyo halka uu haatan u marayo. qorshaha baabacada horta waa qorshe aad u ballaaran xukuumaddu priority ama koodi la siiyo wax laga warmana baahida shacabka dadka baahan tan abaaruhu ma saameeyeen in dib dejin lagu sameeyo weeyaan. qorshaha wuxuu ahaa 60 qoys la dejiyo total 60 qoys guriyooda oo dhameystirnay fiiloogeeda waan dhameystirnay biyo gelintiina waa idin waa dhamaystirin tahay shacabka hadda ma soo xulanay iyagoo loogu eegiyo shacabka baahan ee xoolaan haysan marka maxaa qorshaha waa halkii qoys waxa la siinaa 25 neef oo xoolaa la siin ariya la siin oo riya iyo 5 neef oo loo dhashay gacanta laga saariya beertan imika dhex tagan oo kale waa beertii lagu tagay weeyaan oo shacabku u talagalay hektar buu halkii qoys yeelanaya hektar Suudaan garaasa oo lagu talagalay inuu calaf xoolaha siisto in neefka la sidii lagu tagay waa neef lagu talagalay in caanaha iyo hilibka ay bataan oo neefkaas halkaas wax lagu geenaya biyo lagu siinaya Suudaan garaasa lagu siinaya kale lagu siinaya beertan imika tagan waa beerta baabacada weeyaan shacabka weeyaan ana abuurna weeyaan total wada artiin dhaxsideena ku soo taagantay way dhamaystiran tahay. waana kuwan qaar ka mid ah qaybihii bulshada danyarta ahaa ee laga soo kala xulay tuulooyinka hoos yimaada degmada Qabri Bayax loogana faa'iideeyay qorshahan bacbaco ee degmadaasi kuwaas oo noo sheegay in lagu wareejiyay guryihii agabkii xoolihii iyo guud ahaanba adeegyadii kala duwanaa ee ay u baahnayeen. anagu waxaan ka mid qabalayga Dibiile ee ka tirsan degmada Qabri Bayax marka hore xamal baan ahaa waan shaqaysan jiray
qolba beerahan dhulka ka falan jiray qolba meel baan ka shaqayn jiray maanta laakiinse beertii la qoday oo masnaa ayaan imika inaan gacanta geliyo oon midheega cuna ayaan rajaynaya oon kuna socda waxaana la siiyey 25 ariya aan 5 lo ah gurigii raashinkii furaashkii weelkii wiciyad wax la naga reebay ma jirto gabadha iyo carruurtu way kala lumi jireen intay biyo raadinayso marka waxa weeyaan halkan dacalkan ka soo darsada 24 saacadood leedhku 24 saacadood wixii aan dawlad deegaankayga la qabno waa nimcada maxamed cabdicali maxamed garbo wakaalada warbaahinta deegaanka degmada Qabri Bayax رئيس الوزراء dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo khudbad dheer ka soo jeediyay isu soo bax ballaaran oo lagu taageerayo waxqabadkii uu muujiyay muddadii yareyd ee uu xilka hayay ayaa sheegay in bulshada dalka laga rabo inay gacmaha isqabsadaan oo ay wada jir uga howlgalaan horumarka ka hana qaaday guud ahaan badalka Ibrahim Abdi Muuse ayaa faafaynta warkaasi noo eegaya رئيسل وزراء جمهورية الديمقراطية فدرال كيتوبيا دكتور أبي أحمد أيا أنتي وحلك رئيسل وزراء نما هي وحا وبوقشها ولاد كومري ديغانا دالك انتو دا بدن وحا كلا وبوقشها ولاد كوسومري ودما دا بريق أفريكا هذا رئيسل وزراء دكتور أبي أحمد أو وح بدن قبتي مددي يريد وحلك هي أيا وحا وحقبت كيسي ورياق الشعب ككودغن قودهان بدالك وحانا مقالة دا اتسابا لغو قبتي اسكو صوبح بلارن واللغو تاقيري وحقبت كو رئيسل وزراء موچيي مددي يريد وحلك هي انتاسي كدبنا وحا فقاريها dadku isugu soo baxeen khudbad ka soo jeediyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya waa Dr. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dhammaan bulshada dalka looga baahan yahay inay ka wada qayb qaataan geedi socodka horumarineed si loogu guuleysto hirgelinta horumar waara sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaare Dr. Abiy carabka ku dhuftay inay xusid mudan yihiin halgamayaashii naftooda u huray badbaadinta dadkooda iyo dalkooda hooyo የዛሬዋን ቀን እንድናይ የዛሬዋን ቀን ያላዩ እንድንኖር ሲሉ የሞቱ እንድንከበር ሲሉ የተዋረዱ እንድንፈታ ሲሉ የታሰሩ ለሕይወታችን ሕይወታቸውን የገበሩ ሰማዕታትን በዚህ በከበረ ቦታ ቆመን ልናመሰግናቸው ይገባናል si aynu maanta u soo gaadhno oo aynu qorraxdan soo baxday indhaheena u saarno kuwii naftooda u hore ee iyagu fursadan u helin inay maanta soo gaadhaan ee innaga darteed lafahoodii u waayay isla markaana u ceeboobay si aynu innagu sharaf iyo maamuus u helno ee weliba si innaga inaloo sii daayo oo aynu madax bannaani ikhtiyaara u helno xabsiyada u galay isla markaana innaga awgeen naftoodii u horay waa inaynu u mahad celinno marka aynu joogno munaasabadaha qadarinta mudan ee noocani oo kala ah geesta kale dalkeena Itoobiya ee ay quruxdiisa iyo bilicdiisu isku dhafan tahay ee ay ruuxda aadamuhu sida habsamida leh ugu neef qabowsata ee waliba horseedka u ah xornimada dadka madowga ah oo dhan waxa uu u baahan yahay hogaamiye dhibaatada aasaasiga ee dalka xalliya oo waxqabadka hoosta ka soo bilaaba laakiin aan ku faanin waxqabadka yar ee labada bilood ah sidoo kale waxa uu sheegay Dr. Abiy Ahmed in dalka Itoobiya uu caan ku yahay shaqo wanaaga iyo sharafta sidaa darteedna uu hanan doono halka uu maanta jooga meel ka sarreysa ሀገራችንን ከወደድን ግዴታችንን እንወጣ መብታችንንም እንጠይቅ ሀገራችንን ከወደድን ስልጣን ኃላፊነት እንጂ ገዢነት አይሁን ሹመት ማገልገያ እንጂ መገልገያ አይሁን ሌብነት ጥዩፍ እንጂ ኩራት አይሁን haddii aynu dalka jecel lahay aynu waajibaadkeena gudanno kadibna xuquuqdeena codsanno sidoo kale haddii aynu dalkeena jecel lahay mas'uuliyadda iyo madaxnimadu ha noqoto mid dadka loogu adeega eeyayna noqonin mid aynu ummadda ku waxyeelayno marka la inala magacaabo ee meel la inoo dhiibana xilka la inaloo magacaabay waa inuu noqdo mid aynu bulshada ugu adeegno laakiin yayna noqonin
mid ay bulshadu inoogu adeegto tuuganimaduna ha noqoto mid laga yaxyaxo eeyayna noqonin mid la iskugu faano dalka haddii aynu jecel nahay waa inaynu dhammaanteenba ka danqanno dadkeenna barakacaya ee silaca iyo rafaadka mudanaya kadibna waa inaynu itoobiyaanimadeenna darteed ugu istaagno oo aan garwaaqsanno inaynu dhalasho wadaagno haddaba ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed oo xilka ra'iisul wasaarenimo haya muddo 82 maalmood ah ayaa markii uu soo hor istaagay shacabkii isu soo baxay waxa uu ku celceliyay in loo baahan yahay inay dadku wadankooda xorta ah si xor ah ugu noolaadaan isla markaana meesha laga saaro wax kasta oo wax u dhimaya jiritaanka dalka iyo waliba wada noolaashaha iyo isdhaxgalka qoomiyadaha iyo shucuubaha dalka daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxay noogu dhamwar wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray warkayga waxaa si toos ah idin la socodsiin anigoo Faarax Cabdibed aniga asxaabtayga la qayb qaadatay tabinta warkan tan dib ugu kulmi doona xilli tabinteena dambe ee wareed anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh